مسؤولين كتير سنة degmada Afgooye waxay soo kormeereen wadada laamiga ee u dhaxaysa deegaanka ceelasha biyaha iyo sidoo kale degmada Afgooye. Cabdiweli Cali online ayaa warkan ka soo diray Afgooye. xogayaha dawladda hoose ee degmada Afgooye Cumar Fari Muuse ayaa maanta soo kormeeray dhismaha wadada laamiga ah ee isku xirta inta u dhaxaysa deegaanka Carbiska iyo degmada Afgooye oo dhismaheedu marayo meel wanaagsan waxaana maanta la bilaabay wajigii labaad ee dhismaha ayada oo maanta si rasmi ah loo fidiyay laamiga la saarayo wadadan oo aan helin dayactir ceenkan oo kala ah tan iyo markii ay dhacday dawladda dhexe ee Soomaaliya waqtigaas oo wixii ka dambeeyay ee wadadan martigelisay burbur baahsan oo ay adkeed in si fudud ay uga soo kabato. Cumar Fari Muuse xogayaha dawladda hoose ee degmada Afgooye oo Universal TV kula hadlay goobta uu dhismaha ka soconayay ayaa bulshada ugu baaqay in kaalintooda ku aadan dhismaha wadadan ay qaataan. الحمد لله هذا متقنع وأنا رجينا إن وقت كوبان ودمسترو وأنا إسكا كاشري هيد نرويشة iyo maamulka degmada iyo gobolka iyo koonfur galbeed iyo jambarka iyo waxa iska kaashaday gaadiidka mutaada oo maadalina gaadiidka meel kasta oo la dhiso ala kaashaya gaadiidka la kaashada Soomaalida waxa waaye dadka ugu badan oo wax dhiska iyo la kaashado waa gaadiidleyda aad oo maadalina waana noo bilaabay jidka ayaguna anfici doona hadii ilaahay amiga xilliga hore 7 mitir oo ahay haddana waxa waaye waa ka weyn yahay 8 mitir 40 senti waaye marka waa dareemi kartaa dawladda adogeed ayaa 7 mitir ka dhigtay oo xoog galeed marka anaga hadda 1 mitir iyo 40 senti ku darna waxaan isleenahay waxa waaye wax badan qabateena isleenahay wadadan oo dhirirkeedu yahay 5 kilomitir ayaa halbowlo ah isku socodka gaadiidka Muqdisho iyo Afgooye waxaana maamuladii kala duwanaa ee soo maray Afgooye aysan ku guuleysan inay dhisaan wadadan oo bulshada dhib badan ay ku qabtay isticmaalkeeda. Cabdiweli Cali online TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha